wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiweli Cabdulaahi Suufi ayaa markii u horeysay ka hadlay oo hore xabsiga loogu taxaabay. Wasiirka ayaa sheegay inuu ku guuleystay soo deynta xadhigga xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley. Wasiirka ayaa sidoo kale tibaaxay ujeedada rasmiga ah ee xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley loo xidhay. maanta anoo mid hawl shaqaag gobolka Gabiley waxaan doonayaa halkan uga sheego bulshooyinka reer Gabiley iyo si guud ba shacabweynaha reer Soomaaliland in shalay ay xildhibaanadii golaha deegaanka ee xidhnaa ay noo suurta gashay inay ka soo baxaan xabsiga taasoo dad badanna ay waxa weeye hawshooda qayb ay ka haayeen marka markii halkan ugu mahad celinaya wasiirka arrimaha gudaha runtii naga aqbalay ergadii iyo maaragtay hawshan galnay marka xadhigga xildhibaanadu wuxuu la socday oo ka horeeyay khilaaf soo kala dhex galay golaha deegaanka Gabiley oo maaragtay uu jiray is-afgaranwaa marka taasa ka horeysay xadhigga runtiina waxaan u balansanahay inaan khilaafka golaha deegaanka Gabiley aanu xalino marka ciidda laga soo noqdo fasaxa ciidda kadib maantana xildhibaanada shan ka mid dibadda joogaan xiriyadoodii waxay haystaan hal xildhibaan oo kaliya ku hadhay isagana hawshiisa waan ku jirnaa xukuumaddu uma taagna hadii jeer inay dadka iska xidho waxay ciddii sabab lagu helon baa xadhig iyadoo la marayo sharciga maaragtay la mariyaa tan imika waxaan ku soo gabagabeynay ku soo xalinay xal siyaasadeed weeyii xildhibaanadu waxbay tirsanayaan iyagana waxba laga tirsanayaa marka si siyaasiyan u xalin hadii marka waxaan doonayaa shacabweynaha reer Gabiley inta u sheegno khilaafka golaha deegaankuna muddo dhow insha Allah xalkeeda ku soo gabagabeysmi doono golaha deegaankana waxaan uga fadhinaa reer Gabiley inay ka shaqeeyaan horumarinta gobolka oo adeegyada bulshada ee loo igmaday ay ka soo baxaan wixii ay isku afgaran waayaan ay ku xaliyaan wuxuu ogol yahay xeerka iyo sharcigu xeerka maaragtay dawladaha hoose xeerka gobolada iyo dawladaha hoose inay ku xaliyaan xildhibaanada looma diidana inay shaqadooda qabsadaan xildhibaanada looma diidana inay maayirka la xisaabtamaan xildhibaanada looma diidana inay la doodaan oo ay maaragtay wixii uu ogol yahay sharcigu ay maaragtay ay hawshooda ka qabsadaan waxa loo baahan yahay laftigooda noqdaan dad mas'uuliyiin maadaama yihiin xildhibaanadii gobolka oo yihiin dadkii hogaaminayay in hawshooda ay musiska ay ku ekeysiyaan oo ay raacaan sharciga ummadana ay u horseedaan maaragtay horumar bulshada gobolka waxay uga fadhidaa xildhibaanada inay maaragtay noqdaan dad u horseeda maaragtay horumarka hiigsigii waxa u baahan marka waxaan ku soo gabagabeynayaa qaybtii hore ee hawshii la xiriirtay golaha deegaanku noo soo dhamaaday qaybta labaadna marka fasax ciid laga soo ducdan galeynaa marka shacabweynaha reer Gabiley iyaga laftigooda waxa doonayaan xildhibaanada la xisaabtamaan oo iyaga codsiiyay shalay iyaga u codeeyay muddo imka joogan 7 sano ku dhow xildhibaanada waxay qabtay iyaga laftigooda inay shacabweynaha la xisaabtamaan u baahanahay annagu haddaan nahay dawladda dhexana faragelin meyn awoodaha ay leeyihiin golaha deegaanku laakiin haddana wixii yimaada khilaaf iyo maaragtay iyo afgarwaa marba waxaan taageeraan xalino waa Khalid Maxamed Daahir TV-ga badda cas gobolka Gabiley.